السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maantay waxaan doonayaa inaan halkan aan ka bilaabno window time oo ah office-kaas waxa aas u ah windowga. qofku hadduu window uu soo fahmo say tahay u fahmo waxa u fududaanayo eeladaha ka dambeeyo. sida aan wada ognahay maantay adduunyadu waxay aad ugu baahay aalada teknolojiyadana waxay leedahay meel ay kasoo bilaabato iyo meel saas loo maro. haddii aad doonayso in computerka aad wax badan aad ka barato, marka koobaad waa in aad barataa aas-aaska computerka. aas-aaska computerku maxaa weeye? waxa weeye window, word, excel, access, powerpoint, publisher. inkastoo aana maantay aad aan loo isticmaalin publisher. intaas haddii aad barato computerka waxaad ka haysataa fikir weyn ayaa ka haysataa, sharaxaad fiican ayaa ka haysataa, waa ku shaqo tegi kartaa, howlaha adduunya ayaa ku qabsan kartaa, waana sii wada kartaa, waa sii baran kartaa. computer types of computerka ayaa waxa ah server computer, miniphone computer, super computer, mini computer, personal computer. computerka ayaa waxa ah shantaas qaybood waa qaybaha u caansan. computer windowna waxaa lasoo saaray 1975. ay tahayba haddii aad doonaysid naftaada ina maanta aad hormariso waa in aad barataa xirfaduhu waxay kaa dhisi doonaan inaad si nidaamsan aad u barato wax waliba oo luqad ah. haddii maanta aad garanayso computerka iyo sida loola tacaamulo, aad garanayso luqadda ingiliishka, waxaad tahay perfect. waxaan kugula talinayaa inaad dhalinyaro aad computer basic aad si fiican aad u barataan, luqadda ingiliishana si fiican aad u barataan. labadaas aalad haddii aad barataan ma calaacali doontaan, waayo computer basic wuxuu kaa dhisi inaad teknolojiyadii aad fahamto. ingiliishkana wuxuu kaa caawin inaad luqadaha kaleeto aad u daabacdo oo yacni aad u sii marto, inaad luqadaha kaleeto aad barato. sida maanta wada ognahay waxaa dunida ugu caansan ee la isticmaalaa waa technology iyo English language. aad baa loo isticmaalaa. marka walaal muddada ha laga kaco, ha la barto luqadaha si wanaagsan ha loo barto. xirfad weeye, waa ku shaqo tegi kartaa weliba aad iyo aad. cashirkan oo iska ahay hordhac, cashirkeena labaad ayaan ku bilaabi doonaa window iyo waxa uu yahay iyo sida loo isticmaalo. inta aan ku kulmayno cashirkiisa kaleeto waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.